وقلبنimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 28 bisha Janaayo sanada 2023 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. ninka lagu magacaabo Cabdirasaaq Jurile ayaa Xasan Garguurta u wata dalka Talyaaniga si dhaqaale ay lunsadaan halkaasi magaca ummadda Soomaaliyeed ay uga soo qaataan. Xasan Garguurta ayaa doorkani awoodiisa oo dhan isugu geynaya lunsashada hanti fara badan isaga iyo qoyskiisa. waana sababta mar walba ugu fududahay ragga ugu musuqmaasuqa badan Soomaaliya inuu hore ugu sii kaxaysto meel walba oo isiraada dhaqaale ayaa laga soo heli karaa iyadoo la isticmaalayo magaca iyo darajada dawladnimada Soomaaliya. Tusaale safarkii kan ka horeeyay muddaxileedkii hore ee Xasan Garguurta uu ku tagay dalka Talyaaniga waxa uu hore u sii kaxaystay nin Soomaaliya u fadhiyay FAO shirkaas oo aysan ka soo qayb galin mas'uul haya darajada madaxweyne ama ra'iisul wasaare maadaama shirka ujeedada loo qabtay ahayd arrimaha beeraha oo kaliya balse Xasan Garguurta ayaa markaasi noqday shakhsiga kaliya ee darajo madaxweyne wata ee halkaasi iska xaadiriyay wuxuuna meesha u tagay laba ujeedo kala ahaa in uu dad isxambaar ahaan ugu sii qaado wadanka Talyaaniga iyo in dhaqaale uu ka soo weydiistay shirka hay'adda FAO kadibna waxa uu soo qaatay tareen isagoo ugu soo degay sidii Soomaalida tahriibka ahayd stationka caanka ah ee Roma Termini taasoo xitaa ay la yaabeen dhalinyaradii tahriibka ku gashay dalka Talyaaniga oo fadhiya meesha uu ku soo xirtay tareenkaasi. sanadkii hore dhamaadkiisa waxaa sidoo kale diyaarad ku ritay Khadija Al-Maqsumi shir looga hadlayay isbedelada cimilada oo lagu qabtay dalka Masar. sababta waxa ay ahayd in looga sheekeeyay in lacag loogu talagalay cimilada loo qoondeeyay Afrika si uu la wareego qoondada Soomaaliya balse wax madax ah oo ilaa ay heer madaxweyne waxa ka soo qaybgalay kaliya madaxweynaha Masar oo ahaa martigeliyaha shirka iyo ninka ugu sareeyay qaramada midoobay. safarkan uu ku tagi doona Xasan Garguurta dalka Talyaaniga waxa ka soo shaqeeyay Cabdirasaaq Jurile oo caan ku ah dhaca hantida qaranka iyo la shaqeynta cadowga Soomaaliya waxaana lagu xasuustaa kaalintii uu ku lahaa mashruucii dawladda Talyaaniga ee Soomaaliya ku caawin jirtay xilligii dawladii kacaanka Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre. mashruucaasi waxaa la dhihi jiray Fondo Aiuto Italia iyadoo loo dhiibay Cabdirasaaq Jurile dhismaha jidka Garowe ilaa iyo Boosaaso jidka dekada Boosaaso ilaa iyo magaalada Boosaaso wuxuuna ku sameeyay musuqmaasuq aad u weyn oo lagu xasuusto in gaaladii Talyaaniga ee mashruuca wadada iyo dekada dhisaysay uu ka dhaadhiciyo waa Jurile in wadada la yareeyo baaxadeeda maadaama highway la rabay iyo buundooyin biyaha hoos maraan in meesha laga dhiso si meesha lacagta loogu dhex bixiyo. arrinkaasi waa ay sameeyeen maafiyadii Talyaaniga iyo kooxdii Jurile kaabaha u ahaa. kadibna waxaa sidoo kale Cabdirasaaq Jurile la rumaysan yahay in sunta iyo qashinka nuclearka Talyaaniga laga keeno uu ku hoos duugay dekada Boosaaso isagoona dhaqaale far badan kaga soo qaatay dawladda Talyaaniga. haddana markii burburkii uu dhacay Cabdirasaaq Jurile oo Nairobi ku noolaa waxa uu ku xirtay Cali Mahdi Maxamed oo markaasi sheegtay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya sanadii 1991 in sunta warshadaha dalka Talyaaniga iyo qashinka nuclearka lagu duugo badda Soomaaliya iyo dhulka u dhaxeeya Muqdisho ilaa iyo Cadale. lacagtii laga soo qaatayna waxa kala qaybsaday Cali Mahdi Jurile iyo Talyaanigii maafiyada ahaa. haddaad xasuusataan wariye arrinkaasi daba socotay oo ahayd gabar Talyaani ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo ku guday jirtay baarista sunta iyo qashinka nuclearka ee lagu duugay Soomaaliya. kadibna waxaa loo qabtay arrinkaasi wiil Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Xaashi kaasoo muddo badan ku xirnaa xabsi ku yaalay dalka Talyaaniga. ugu dambeynna waa tii la sii daayay oo magdhow aad u far badan lagu siiyay kadib markii lagu waayay wax dambi ah balse ay gacan geliyeen kooxda Cali Mahdi iyo Jurile si arrinka loo damiyo. nasiib xumada jirta ayaa waxa ay ahayd in wiilkii lagu dilay dhawaan magaalada Muqdisho inta uu xukunka qabtay Xasan Garguurte la taliyana uu ka dhigtay Jurile oo hore wiilka xabsi dheer u geliyay. qof Soomaali ah oo ka hadlayo ma jirto dambiga laga galay dalka iyo wiilka Soomaaliyeed xaqiisa difaacaya. fadeexadaasi waxaa xilkiisa ku waayay oo wadanka Talyaaniga kaga cararay ra'iisul wasaarihi xilligaasi Talyaaniga ee qaybta ka ah hantidii dawladda Talyaaniga ee lagu dhacay Soomaaliya. ra'iisul wasaarihi hore ee dalkaasi laguna magacaabi jiray Bettino Carashi kaasoo ku geeriyooday isagoo baxsad u ah dalka Tunisia. Bettino Carashi waxa uu qayb ka ahaa burburintii dawladii kacaanka iyo horintii colaadaha sokeeye ee Soomaaliya si aan loogu soo raacan fadeexadii iyo lunsashadii dhaqaalihii dawladii Talyaaniga awid ay dal shisheeye geliso. haddaba maanta in Xasan Garguurta uu la taliye ka dhigto mid ka mid ah maafiyada madow ee Talyaaniga haddana uu qayb ka noqdo qorshe la rabo in malaayiin dollar ah loogu soo qaadanayo iyadoo la isticmaalayo magaca iyo darajada Soomaaliya. ilo xog ogaal ah oo safarkaani la socda ayaa inoo xaqiijiyay in Cabdirasaaq Jurile iyo koox maafiya Talyaani ah oo arrimaha deeqaha Afrika inay isla dhacaan qorshahoodu uu yahay inay soo dhameeyaan casuumaadda iyo safarka uu ku tagayo Xasan Garguurta dalka Talyaaniga taasoo loo baahan yahay Soomaalida degan dalka Talyaaniga inay ka shaqeeyaan fashilinta damaca guracan ee maafiyada madow si magaca iyo sharafta Soomaaliya loogu difaaco. Soomaaliya ma qaadi karto sun iyo qashin dambe oo lagu shubo iyo qandaraas laga soo qaato warshadaha waaweyn ee waay meel ay ku shubaan qashinkaasi. Talyaaniga waxa uu dhahaa ii sheeg saaxiibkaaga aan ku sheego qofka aad tahay. marka Xasan Garguurta saaxiibadiisa waa burcad iyo mooryaan rabta in ay dawladnimada ku helaan malaayiin dollarka Mareykanka waqtiga kooban oo ay hayaan talada dalka. haddaad mooday in Cabdirasaaq Jurile la taliye sare uga dhigta Xasan Garguurte dagaalka kala dhaxeeya Saciid Cabdullaahi Dani haddaba arrinkaasi sax ma ahan ee waa mashruuca boobka hantida qaranka. warbixinta aan halkan idinkugu soo gudbinayno haddii aad been moodo
waad raadin kartaan xogta waxaadna ka heli kartaa qoraaladii laga qoray joornaalka weyn ee ka soo baxa dalka Talyaaniga laguna magacaabo Corriere della Sera adigoona ka raadin kara Google Archive iyo waliba meelaha kale ee qoraalada lagu keydiyo. xogaha soo naga soo gaaraya deegaanada Galmudug ayaa sheegay in culimada ahlu sunna wal jameeca halkaasi ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaq xooggan oo iga soo horjeedaan bayaankii dhawaan ka soo baxay shirkii culimada Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaasi oo soconaya 4 cisho. hoggaanka sare ahlu sunna wal jameeca ayaa bayaankaasi ku sheegay mid aan loo dhamayn isla markaana laga talagelin culimada ahlu sunna wal jameeca kuwooda ugu magaca weyn ee ku sugan gudaha dalka. waxayna ku eedeeyeen xasan sheekh maxamuud in bayaankii ka soo baxay shirkaasi isaga uu qortay isla markaana uusan fiirin kaalintii dalkan ay ku lahayeen culimada ahlu sunna wal jameeca oo in ka badan 10 sano dagaal kula jiray dagaalamayaasha ururka al-shabaab. waxa ay sheegeen in villa Soomaaliya ay bilowday qorshe ay ku kala jibinayso culimada Soomaaliyeed isla markaana ay ku xaqirayso kaalintii dalkan ay ku lahayeen ahlu sunna wal jameeca iyagoona haatan wixii ka dambeeyay ku hanjabay inay hubkooda la soo bixi doonaan isla markaana la wareegi doonaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah maamulka Galmudug ee uu hogaaminayo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay waxaa gabi ahaan badamay dhaqdhaqaaqii al-sunna wal jameeca ay ka waday deegaanada Galmudug balse haatan waxaa muuqanaya in al-sunna wal jameeca oo ka xanaaqday bayaankii ka soo baxay shirkii Muqdisho lagu soo gabagabeeyeen haatan dib ay uga soo laba kacleynayaan deegaanada Galmudug. Sheekh Shaakir ayaa ku hanjabay in xasan sheekh uu iska indhatiray hoggaanka sare ahlu-sunna wal jameeca isla markaana xiriir ay la sameeyeen villa Soomaaliya gaaraan Abshir Buqaari loogu sheegay laguna jawaabay in haatan ahlu-sunna wal jameeca hoggaankeedii wax fursada ama wax kaalin uusan ku lahayn shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taasi oo loo arko inay ka xanaajisay hoggaanka sare al-sunna wal jameeca ee uu hogaaminayo Macalin Maxamuud. Sheekh Shaakir ayaana haatan sheegay in ahlu-sunna wal jameeca wixii haatan ka dambeeya aysan wax wada shaqeyn la lahayn dowladda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud isla markaana dadaal ay ku bixinayaan sidii gacantooda mar kale ay dib ugu soo celin lahaayeen magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada Galmudug iyagoo sheegeen sidii shabaab ay la dagaalamayeen ay ula sii dagaalami doonaan isla markaana mowqifkooda la dagaalanka al-shabaab uusan waxba iska bedelin balse ay ka xun yihiin in la xaqiro kaalintii ay ku lahayeen dalkan iyo nabadaynta gobolada dhexe oo in muddo gacanta ay ku hayeen culimada ahlu-sunna wal jameeca. xogaha soo aan helnay ayaa intaasi ku daraya in hoggaanka sare ahlu-sunna wal jameeca warqad cabasho ah ay u gudbiyeen villa Soomaaliya isla markaana ay ku dalbanayaan in si degdeg ah cabashadooda wax looga qabto isla markaana hoggaanka sare xasan sheekh maxamuud kulan xasaasi ay doonayaan inay la qaataan hoggaanka sare ahlu-sunna wal jameeca. Qoorqoor ayaa la sheegayaa in xasan sheekh maxamuud uu ku wargeliyay dhaqdhaqaaqa ahlu-sunna wal jameeca ay ka wadaan deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah maamulka Galmudug waxaana sheegay arrintan in laga hortago inta uusan mar kale dagaal ka qarxin deegaanada Galmudug ay maamusho. wixii warar ku soo kordhay arrintan daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkayaga dambe hadduu Allah awood leh uu raali ka noqdo.